بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وعشرة تحنها أهان جري هرمرينتا بحثيغا أرديغا باحثكا أو باريا يعني ديارنا بحثي أما هنقضى بحثي تكليفي أما هنقضى بحثي تخريج أو تخرج باج هنقضى ماستر هنقضى دكتورة أيا كان بحثي جيسو هنقضى أما سيدو كلا أما علمك ديارنا امتحانك هدي لا يكون حاشيين كوتا أما امتحانك تكليفي أما نوعيالك أتكهلي كريسان وحيابها وارك نعيش كلبي حدبا هدي أتاي باحث كنوع عاصم كشيغانيسا حاشية بالك اللي يراهدو فاصل الحاشية ودليكتان إنay kaa martay dhinaca midigta oo dhinaca laatiinka ay ka jirto ayadoo oo baxtigaagu yahay carabi oo aad ka doonaysay dhinacan xagga inay marto arintaas haddii dhib ka haysato baxtigan ayaa u baalka la yiraahdo maqdacan ayaa kaagi ah sidoo kale tan ka sheeganaysa raqamka ama haddii la yiraahdo arqaamta xaashiyada sufla ama haddii la yiraahdo tacliiqa inuu laatiin yahay oo aad ka dhigay laadahay carabi labadaas arimood ayaan baxtigeenan ku sharxi doonaa waa laba arimood oo aad ay uga sheegtaan ardayinka baxtiga sameynaya laakiin xalkoodu wuu fudud yahay basiid weey ma sha Allah tabarakallah mana u baahan inaad la soo degtid barnaamij oo haddii la yiraahdo intaad balka Google garayso aad wax soo dejiso ma baahnid kaliya waxaad u baahan tahay inaad la haysato ama si fiican aad u garanayso tacaamulka iyo sida loo adeegsado waarka ama office-ka si guud طيب markaad waarka la adeegsanaysid oo sidaan oo kale waarka aad ugu jirtid oo tacliiqi oo faasil tacliiqi oo dhinaca xagga ka xigo kaliya waxaad sameyn doontaa inaad tagto khiyaarka la yiraahdo magaciisa al-arab inaad tagto hadii aad adeegsanayso balka la office-ka adeegsanaysa oo carabi yahay ama markaasna waxaad ka dooran doontaa hadii ilaahay idmo mukhaddad tafsiili ama muswadda waa isku mid labadan khiyaar كي أدارتيدا سيدان أيو حسب بدليان أو برنامج كي سيدان أيو كون نقني مخطط التفسيرنا سيدان أيو نقني لبضو ضمنا وحين جينيان إسكو هال ميل أيين جينيان حدبا هدي أي تايلو بالك الأوفيس كاد أدكسينيس أو صناهين يعني عربي أو صناهين اللاتين أو هاي أو اللغة دي ساي إنجليش تهاي واحد أدكسين كرتا كيبورد كيا أدكسين كذا مهم ما هن اللغة ده عربي أي كوت هاي وأوفيس كاد أدكسينيس أو عربي كشقينيا لكن كلية كيبورد أياد واحد كمان دونتا كنترول alto iyo n waxay u dhigantaa almuswadda hay u dhigantaa hadii aad qabato control alto oona waxay u dhigantaa waxa la yiraahdo mukhaddad tafsiili ay u dhigantaa labadooduba isku shaqo ay inoo qabanayaan oo shaqada aan rabno isku mid ay inoo qabanayaan laakiin waxaan isweydiinaynaa waxa weeye xagee baan ka tagayaa hadii aad carabi ku adeegsanayso office-kaaga carabi yahay arday baad ku dhufan doontaa deedna waxaad dooran doontaa mukhaddad tafsiili ama waxaad dooran doontaa muswadda hadii uu sanahayn oo laatiin uu yahayna ama xitaa haduu carabi yahayna keyboardka laftarkiisa ayaa shaqadii ku qabanaya adiga oo isla qabanaya labadaas meelood oo hadii la yiraahdo control alto iyo balka la yiraahdo control alto iyo n ama control alto iyo o labadaas ayaa saddexda mid ayaad isla qaban doontaa hadii aan leedmo sidaan oo kale markay ku soo baxdo hadaba waxaad raadin doontaa meel xaashiyada sufla ay ku taalo raqamkeedii uu ku yaalo ayaad raadin doontaa sidaan oo kale hadda halkan horteena ka muuqata markaas ayaan dhaban kaliya ku dhufan doonaa xaashiyadii ayaa inoo soo bixi doonta xaashiyada markay inoo soo bixdana waxaynu ku qaadan doonaa hadii aan leedmo inaan falaartan yarta hoos u jeeda aan furno deedna aan doorano khiyaarka labaad hadii uu laatiin yahay barnaamijkaagu hadaba waxaad ogaataa inuu yahay khiyaarka koobaad maahan midka labaad ayaa dooran doontaa markii aad dooranto sidaan ayaa wax isu bedelayaan oo waxa ku soo baxaya daliigtii yareed oo ahayd faasilka oo kala saaraysay tacliiqa iyo matniga kala saaraysay hadaba hadii sidaan oo kale ay laatiin tahay waa doonaysid dhinaca midigta inay ka timaado dhinaca bidixda u socoto waxaad isla qaban doontaa control iyo shifti oo dhinaca midigtaada ah markaad isla qabatana way wareegaysaa deedna waad iska jari doontaa waad ka soo laaban doontaa meesha hadii aad laatiin u rabtay oo dhinaca carabiga ay ka shaqeynayso oo sidii hadeertaan ba ahayd macnaha barka la yiraahdo dhinaca carabiga ay ka jirto oo aad rabtay midig inay ka timaado bidixaadana waxaad isla qaban doontaa control shiftida dhinaca bidixdaada hadaba tusaalihi waa kana markii aan isla qabto control shufti markaan isla qabto dhinacayga midigtayda ah waxay ka imaanaysaa dhanka midigta waxayna u soconaysaa dhanka bidixda waa sida waafaqsan luqadda carabiga markii aan adeegsanayo laatiin oo aan doonayo dhinaca midigta inay ka timaado bidixda ay ka timaado oo dhinaca midigta ay soo aadana waxaan isla qabanayaa control bala shufti oo dhinacayga midigta ah min al yasaar ila al yamiin ayayna tagi doontaa hadii Allah yiraahdo
waaya markii haddaba meeshii aan rabay aan la tago oo dhinacaan u wareejiyaan midig ka keeno bidix ay u socoto waana sidaa hadda anigu aan rabo waxaan samayn doonaa carda ayaan tegayaa deedna waxaan tegayaa takhdiid الطباعة ayaan dooranaya sidii caadiga ahayd ay ugu soo laabato haddaba aan aragno maxay tahay natiijadii waayahay alxamdulilah waad u jeedaan mukhadad tafsiil hadday xaggu inaga jiray laakiin hadda xaggu inoo maray haddaba waxaynu xalinaynaa markaana arrintii labaad oo ahayd in lambarkii uu iga yahay yacni laatiin oo aan u baahanahay lambarkaan inuu noqdo carabi waxaan markaana adeegsan doonaa malaf ayaynu tegi doonaa deedna waxaan tegi doonaa options ama khiyaaraat wax la yiraahdo deedna waxaan dooran doonaa khiyaaraat mutaqaddima markaas ayaan falaartan hoos uga socon doonaa haddii Allahu yiraahdo waxaan dooranayaa meel ay ku taalo arqaam waatana al arqaam waa u jeedaan halkan al arqaam baa ku qoran horteedana waxaa saaran falaar ayaa ay furmaysa carabiga ayayna ay saaran tahay haddaba falaarta ayaan furayaa hindiya ayaan dooranayaa meesha carabiyada ah hindiya ayaan dooranayaa muwaafaqna waan dhahayaa haddaba alxamdulilah waxaad u jeedaan in natiijada ay noqotay meeshii haddeertan laatiinka ahayd inay isu bedeshay carabi labadaas arrimood waa laba arrimood aad looga sheegto oo ardooyinka baxdiga sameynaya ay aad uga sheegtaan haddaba waxaan leeyahay xalku waa sahal waana kana xalkii kusoo dhawaada magacaygu waa Saciid Axmed Faarax casharkaana waa casharadii horumarinta baxdiga ardayda baaxifiinta ah oo diyaarinaya macluumaadka diiniga ah ama hadda ku socda inay diyaariyaan takliifi ha noqdo ama takharuj ha noqdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu